ما داون لكن وحوي محن كراهي ملا wuxuu maqlay maalin dhowdo laga hadlayay maxaan ku rahay arrimaha dibadda waxa runtii guddiga arrimaha dibadda ayaan nahay waa wada shaqeynaa moogta waa xilkayga arrimaha dibadda markaas runtii goluhu iyo dad badanba wayna weydiiyaan waxay dhahaan maxaan ku rahay maxaa ka dhacay arrimihii dibadda soo tari maayaan marka runtii aragtida caynkaasi way jirtaa aan ummadda firayo yani waana xilkayga arrimaha dibadda وجهته لكن maxaa sababay baa muhiim moogta waxa sababay waxa weeye maaha wax imika dhacay maaha ama saacad intuu joogay iyo hadii bidkii leeyahay intuu joogay iyo intii uu maxaan ku rahay Muuse joogay wax dhacay maaha waxani waxa weeye waa wax soo tareeyay oo soo socday waxana sabab ah siyaasadeenii hore ee soo jirtay ee arrimaha dibaddu way khaldanayd dariiq khaldan bay haysay waxaana weeye wax soo tareeyay intii hore dawladda Soomaaliya ayaa hadii bidka leeyahay ayaan awood lahayn oo dibadna maxaan ku raay awood la'aantii dawladdii Soomaaliya ee jirtay ayaan ka faa'iideysan meelaha carcareen laakiin imika dawladdu waa dawlad way soo koraysaa dawladnimadeedii wax badan bay gacanta ku qabanaysaa dabadna albaabo badan ayay doonaysaa inaga xidho moogta taa waxa raaca qoladii hore joogtay iyo qoladana waa kala jaad oo kuwii hore niman doonayay inaynu heshiino oo wax kala garanaysaa ama wax wada yeelana ama si wanaagsan u kala tagno ayay hayn kuwani waa waxa weeye maxaan ku rahay waxa weeye in qolada waa raxmar yar oo dunidu siday tahay aan waxba ka garanay marka yaani waxay ka helayaan ana meesha madaxweyne ku xigeen dabada albaabadana ka xiran marka waxa leeyahay saacad yaaru yaabin ma waxa imka dhacay waxani waxa weeye waxaan sii noqonaynaa isolated been bunta ka sii qorna arrinkaas waa jira aan waa ka marxad furaya isugu adhameeyay suurta adhameeyay marka waxa weeye maxaa keenay weeye siyaasadda xumi iyo waxa weeye siyaasadeena ictiraafka iyo aqoon raadsigu waa qarta jeex bayn maxay Soomaaliya waxa weeye dawlad baynu wada lahaan jiray ma fahamtay meel baynu fariisanaa waan ka go'aynaa baynu niri berigi hore ku darsanayna si qarda jeexa ayaynu ugu darsanay waxa weeye Soomaaliya waxa la yiraahdo wada lahaan jiray Soomaaliya Republic waxa la oran jiray maxaan ku rahay goboladii maxaan ku rahay Soomaaliland ee Ingiriiska xoroobay iyo ayaa sameeyay intaynu la fariisano waa inaynu nidhaahnaa waanu idinka tegaynaa kaaleena in kala saara miyaad aragtay nin gar lahoo yiraaha maxaan ku dhahay garta soo fadhiisan maayo Soomaaliland ma ha shirka looga yaaco Soomaaliya shirka looga yaaco waa in la fadhiisto oo girka la qabsado anagoo kala saartaan mooyaane waxba ka sameysmaya tii arta waa la inoogu yeeray tii halka waa inoo loogu yeeray maalinta aanay awood lahayn haddaynu qabsan lahayn waxa weeye maxaan ku rahay maanta halka Soomaaliya ma soo gaadhay arkeenu ma soo gaadhay marka waxa weeye dadkii yiri in cidna kala hadlayna Soomaaliya waa muqaddas taasi waa siyaasad khaldan weey waa inaynu cid walba kala hadlaa arrimiin waa inaynu shirka muhiimka tagnaa ee Soomaaliya arrimaheeda laga hadlayo ma fahamtay inta leenahay shirka qayb galbeeyay kan iyo kan aniga aragtida siyaasadda waa taasa keentay maanta inaynu saacadna waxba yaanu baarlamaankiisa ku soo noqonay waxa weeye saacad sidoo xud doonaya asaga laftiisu waa ambad weey bari horaan u sheegnaa nudi war sidan waxba ku iman maayaan siyaasadda arrimaha dibadda waa ka waraaq halkan ku haya siyaasadda arrimaha dibadda dib u noqono marka waxba yeena gudaheena ku soo cilil arrinka waxa weeye arrinka waxaan oran lahaa xukuumaddan leeyahay Muuse aan leeyahay Saacad aan leeyahay aynu isku nimaadno oo aynu siyaasaddeena arrimaha dibadda aynu dib u eegno shaqayn mayso waa madaliis حبايان برلمان كسعد كسوم مثلا برلمان كده كوجفي أرهن ما هيو أساق العقد هيا أنا أقول العقد ما هينو برلمان كل العقد ما هيو 2 مليون بالو جودي با يلعك بدو بالو جودي باعترافك شايف كده كو هيستا ما فهمتي قارو أدري هي قارو محاكو هاي أيو معلمين بير هرو حلو يشيلوا إلى قرقرة يعني وحاسي عدنا وحبا كمسيو عدنا وحبا مركا وحبا يعني
سعد طريق مريان ومرين مايين وحنا سياستنا arrimaha dibaddu waa runtood dad kale way khaldayin waa runtood way khaldantay dubay nagu noqon طريق khaladaynu hayna ma fahamtay Soomaaliya waa in inaga shirarka la inooga yaaca oo la yiraahdo maxaa Soomaaliland ay u imanayaan la yiraahdo laakiin inagii baa fursad si inoogu cararayna shirarkii halka war wallahi in halka dhaafeen ma fahamtay oo dawladda sameysmeen mashkiladda Soomaaliya halka keenta waxa halka Soomaaliya gaarsiiyay waxa weeye waa mashkiladii إسرائيل سوماليلاند بروتكتوريت إيو إيطاليا سوماليلاند يعني سيد حنا يسكون اعترافوي تاسك بلاب مسا إن سوماليا لو سو عليو مشكلة دي محق راي لو سو عليو دولة دي وحكى بلاب مسا إن سوماليلاند ما فهمت وأنا كحماي دولة عصب محق راي ما تا الصومالي قبستنا وعيار الحمر وهي وأوفروا